السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدبا ضمها السنتهين إلهي مهد نقيس كدب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد وحاوي وحنكفر أحسانها إن متقانا كسو غيب قالوا حفلة نروح ضبضا كهدليسو halgankii taariikhiga ahaa ee qori isku dhiibka ahaa ku saabsanaa ogaden ku saabsanaa ama ku saabsanaa Soomaali galbeed runtii waxaad ogtihiin waa qadiyad Soomaaliyeed weeye oo aad iyo aad qaali ugu ah meeshaas dal weyn oo Soomaaliyeed baa ku yaalo oo gobollo aad u fara badan ka kooban aad u baaxad weyn Soomaali oo dhanna waa u dhantahay wax yar ka hor dhagtaydu waxay ku dhacaysay ogaadeen bay ku dhacaysay ma aha arinta ogaadeen ma aha waa qadiyad Soomaaliyeed weeyo cid Soomaali oo ka maqan meeshaasi ma jirto dadkaasi runtii waxay u baahan yihiin xuquuqdooda inay helaan si hufan u helaan iyaguna waxay u baahan yihiin maanta nabadgeliyada ay haystaan inay ilaashadaan ayay u baahan yihiin waad la socotaan oo halgan dheer baa la soo galay taariikh dheer lahaa hadba marxalay soo mareysay de maanta taariikhda ay leedahay waxa weeye dawlad baa u dhisan maanta geeska Afrika waad la socotaan colaado fara badan baa ka socdo nabadgeliyo darro badan baa ka jirto caawa meesha ugu roon ee ugu fiican waxa la isdhihi karaa waa jigjiga weeye iyo dawlad deegaanka Soomaalida ee mataqaana uu madaxweynaha u yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Umar runtii mas'uuliyad aad u weyn ayaa saaran madaxweynaha deegaanka nabadgeliyadiisa iyo isku hayntiisa iyo mataqaana xil weyn baa saaran waa dhanka ururada sida ONLF iyo lamidka ah iyo kuwa kale faraha badan ee rabna inay ku soo biiraan saaxada siyaasadda iyaguna xil gooni ah baa saaran xilka saaran waxa weeye isku haynta deegaanka baawa struggle-ku wuu iman karaayo markasta baawarka iyo siyaasadda waa lagu diriri karayaa oo waa la isriixriixi karaa laakiin waxaa la rabaa in halganka iyo isriixriixa mid normal inuu noqdo ma aha inuu xabad isku bedelo oo mataqaana ay arintu meel kale inaga aadama ah waa shay dabiici ah in siyaasadda la isku riixriixo ha ahaatee shayga muhiimka ee aan laga gorgortami karin waxa weeye in nabadgeliyada waa in la ilaaliyo weeye waxaan u malaynaynaa nabadgeliyaan haysanaa shay ka qaalisanna ma laha ma jiro nabadgeliyada waxaan u baahanahay in la ilaaliyo ama dawladda inoo dhisan ha ahaato oo runtii la isdhihi karo dawladihii ugu fiicnaa ee aan helay ee ina soo mara weeye waqtigii waxaan u malaynayaa waqtiga yar oo aad u kooban sidii aad la socotaan madaxdu way fara badnayd kilka shanaad soo martay nin meesha ku daahay oo waqti dheer qaatay ma laha tan waxaan u malaynayaa almost 7 years buu maray hadda madaxweyne Mustafa wali nabadgeliyay haystaan dadku iskuuladii baa la furay ganacsigii baa socdo shaqa meesha ka bilaabatay waxba ka socdo arinta iskama imanin halgan dheer baa loo soo maray heshiis bay gashay jabhadihii iyo dadkii dagaalamayay waxaan u malaynayaa in lagu fududaado oo haddana inta dibadda loo yaaco hadda xabad dibad laga soo rido xaaladdu sida ay tahay waxaan u malaynayaa la iskuma raacsana fikirka ah in maxay ahayday la bilaabo haddana xabad iyo carqalad iyo dibadda loo yaaco arrin waxaan u malaynayaa aad looga fikiray ma aha marka waxay ila tahay siyaasaddu waxay u baahan tahay in loo fikiro loo samro raggaasu aan qadarinayo inay halgamayaal yihiin qudhoodu ku fikiray mataqaana waan baxaynaa iyo maalmihii dambe aan ka maqlay waxaan u malaynayaa looma baahno colaad iyo mataqaana fadqalali iyo buuq looma baahna mucaaradku waad la socotaan oo halganku laba nooc labadaba waa noqdaa mar wuxuu noqdaa xabad in la rido marna wuxuu noqdaa in qalinka laftiisa lagu dagaalamo moogtahay marka waxa loo baahan yahay xisbiyadii inay mataqaana ay shaqo galaan waxay tabanayaan gudaha inay ka sheegtaan baa la rabaa gudaha inay ka sheegtaan ma aha in dibadda hadda loo baxo
oo buuq la abuuro waa waqtiga ugu fiicnayd ee runtii deegaankaas la marayo marka waxa weeyaan waan idinku dheereeyay waxa weeye waan soo dhaweynaynaa jaaliyada dibadda hadaan nahay in deegaanadaasu siyaasaddu ay ka qayb qaataan oo isbedel laga arko oo mar kastaba ay hawsha la dhaqaajiyo halgankina in horay loo wadaa loo baahan yahay halganka aan ka hadlaynaana waxaan ku soo gaabinayaa waa halgankii Soomaaliyeed ee deegaanada ka socon jiray maanta si nabadgelyo ah ugu socdaa iskuulaad baa laga dhisayaa waxbarashadii baa ka socoto waxaan u baahanahay developmentiga in la dhaadhiciyo oo uu gaaro meelaha aan wadooyinka lahayn iyo deegaanada uusan wali developmentigu gaadhin waxaan u baahanahay dawladda hadda dhisan ee BBA meesha ka dhisan inay dhaadhiciso oo ay gaadho deegaanada oo laamiyada loo qaybiyo dadka si cadaaladana loogu xaq sooro ayaan u baahanahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa idinku dheereeyay waadna mahadsantihiin